بلي بسم الله كسو دواada maxkamadda taageerayaasha kooxda Arsenal waxa garbeyga fadhiya laba kamid ah taageerayaasha Arsenal oo dacwad ka ah qaar kamid ah ciyaartooyda Arsenal ninkan ayaa ku bilaabanaya hay dacwadaada soo gudbi anigoo ah Captain G waxaan dacwad weyn ka qabaa difaaca Bastimirka Arsenal siiba Socrates oo ah 54 jir wuxuuna galay qaladaad waaweyn 3 sano la soo dhaafay 74 gool oo kooxda laga dhaliyay asiga ku lug lahaa maxkamadda Gunners waxa si sharaf leh ugu codsanayna ninkaas in kooxda laga raacday adiga eedaada eedeeda anigoo ah taageeraha weyn ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal Gunners maxkamadda Gunners waxaan ku codsanayaa waliba adigoo qareenka u doodaya qareenka dhexaadina adigoo ah difaaca David Luiz oo inta badan qalqal geliya difaacida ciyaartooyda markay ciyaarayaan ee keeperka iyo shabaqa oo waardiyaha ka yahay golaayo Leno iyo ninka la timo dheeraha Gundoos la cunugas tagnahaas maxaa maxkamadda ka codsanaya in Arsenal laga ereeyo amar bismillah amar tagnayaashaas Arsenal please ilaaliya sharciga bismillah maanta oo taariikhda ku beegan tahay 13 bisha 12aad 2019 waxay maxkamadda taageerayaasha kooxda Arsenal u fadhidaa dacwad ciqaabeedka loo haysto labada ciyaaryahan ee kala ah Socrates Papadopoulos iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo David Luiz Gundoos ku dar iyo ciyaaryahan Gundoos ku dar kadib markii aragnay dooda ay soo jeediyeen labada dacwadayaal ay ka wadaan labada dhinac ciyaaryahanka lagu magacaabo Socrates waxay maxkamadda ku xukumaysaa inuu sanadkan kaliya kooxdu u ciyaaro isla markaana bishii January uu albaabka ka dekado ay maxkamadda ku xukumaysaa teeda kale inta ciyaaryahan David Luiz maadaama kooxda sanadkan uu ku cusub yahay asina dagniin ay hawada u marsiinaysaa maxkamadda taageerayaasha kooxda Arsenal tan saddexaad ciyaaryahan Gundoos inkastoo yahay ciyaaryahan da'yar ah hadii uu dabeecadaha una imri lagu buriyo haduu jooji waayo asigana albaabka ayaa u furmi doono maxkamaddan way noo xiran tahay billahi tawfiiq